nimadii ha lagu noqdaan baan leeyahay 3 saac buu dhammaan lahaa hadda farmaajo muxuu kolba meel u wareerin muxuu kolba abiya u wareerin annaga waxba ka weynay Ethiopia aqli lagama helo oo cilmi lagama helo oo Soomaaliya islaamnimo lagama helo oo lagama helo bini'aadminimo oo qurux lagama helo oo udgoon lagama helo wax allaale waxa ku faa'iideen ma jirto waxaan xun iyo xasadnimo ahayn marka kuwii baad ku meereysanaysaan annaga dusha meydku naga saaraa ayaa idin la war naga qaaditaan daayadii ka noo daamaraya waxaanana ka baxa Soomaaliya waxa farmaajo baa ninka leeyahay hadduu doonayo inuu Soomaali midayo intuu tago musabbix ha u dhiibo madaxweynenimada intuu tago waqooyiga ka dago muxuu abiyo u raacay keligii intuu ka dago qabadhiyaha baash ka kale khayr leeyahdana khayrkiisana maana arage kaasuna ha u dhiibo mid kale waqooyina nimanka leeyahay loo tacsiyeeyo jug baa ku dawlad baa dishay dawlad baa la dagaalantay waqooyina aqriga xuuna ariye hebel baa na dilay ha ka baxaan iyaguna ha ka baxaan waxa reer madinna dawlad baa dishay dawladii cid walba dishay waxa annaga nagu dhacay Soomaali galbeedna dhamaan waa wada ogtiin hal ninoo soo yiraahdo waa ka xunahayna waxa nagu dhacay dadkan walaalnimo iyo saanimo u dugsanay waxay nagu sameeyeen hatta gabdhuhu markay xabadihii daaleen waxa lagu soo wabiga 3,000 qof oo Soomaali galbeed oo wabiga lagu shubay qof qoro raali ahada yiraahdo ama madaxa ama wasiir ama dawladda madaxweynaha maana arag waa qarsanayna fin harbar kuna helana inta soo dhibtay waan ognahay waa qarsanayna hadda Soomaali galbeed laakiin wali waxaanu idin la taaganahay war walaalka iga weyn ku wanaagsanaaw war waxaagana hayso waxaagana aan walaal ahaano baan leedahay war ayr soo ka farmaajo islu goynine adar kabo yar ka dhamaan kullu Jubaland ka ordo kullu baasha ka ordo kullu abiyo hoy tagine inta tagto u dhiib Soomaalinimo hadaad to 3 saac u dhiib musabbix oo qabadhe salaada ka bixi ka ku xigareeyay wasaaraha dhiib wasiirka gaashaandhiga dhiib kamaaliyada dhiib reer waqooyi raali ahaadade tacsi magdhow shanasi oo wixii ku dhaco uga magdhow had 3 saac lagu heshin waa dad aqli badan markiiba iyaga dhow 3 sano waqooyi hogaamiyada inana maamuumana inteena kale Soomaalinimada halkaas laga raadin afka way markaas la difaaci karaamada markaas la difaaci walaalo waa weyn oo naga dameeyo curadka markaas noqonaysaan anagu nin Soomaali walaal ka dhigtay waxaan hoos ugu maahmaan waa in kashiido walaal ka dhigtay kashiido habeenkina beerta ka cunay hadaad ku tiirsan qodxaha ku mudi war